beri baa waxaa jiray waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya arrin cajiib ah oo ka dhacday maxkamad ku taala halkaasi. taariikhda waddanka Sacuudiga ayay gashay arrintan ayaa waxay ka bilaabatay nin la oran jiray Xizaan oo nin da ahaa ayaa muddo gurigiisa wuxuu ku hayay hooyadiis oo uu ku dhaqaaleynayay. maalin maalmaha ka mid ah gurigii waxaa ugu yimid walaalkiis oo gobol kale ka yimid oo xaas iyo caruur leh. waxa uu ku yiri waxaan doonayaa hooyo inaan hadda wixii ka dambeeya aniga kaxeeyo, waayo adigu waxaad noqotay walaalkayow qof da ah oo waad weynaatay. laakiin isagu wuu diiday arrintaas. labadoodii way isku mari waayeen. sheekadii muran xoog leh baa dhacay ciddii hooyada hayn lahayd. kadib waxay go'aansadeen inay maxkamad isla yimaadaan waddanka Sacuudiga. maxkamaddii waxay samaysay dhowr jalaso ama dhowr mar oo la isku soo laabtay ilaa mid kasta uu ku adkaysanayay mowqifkiisa ah hooyadiis inta cimrigeeda ka hartay in isaga uu xanaaneeyo. laakiin qaadigii maxkamadda ayaa u yeeray hooyadii. waxa uu weydiiyey su'aal ah, yaa doonaysaa in uu ku xanaaneeyo? markaas bay eegtay wiilkii weynaa. waxay ku tiri waa ishayda bidix. midkii kale ayay eegtay. waxay tiri waa ishayda midig. qaadigii talaa ku xumaatay. wuxuu doonayaa inuu arrintani gartan meel saaro. kadib wuxuu go'aan ku gaaray in wiilka yarka ah maadaama uu ka dhalin yar yahay kan weyn in isaga la siiyo oo hooyo wixii intaa ka dambeeya isaga uu hawsheedii la wareego. laakiin wiilkii weynaa aad buu arrintaa uga murugooday. waa uu ka naxay go'aankii maxkamadda. waxaa bilowday arrin aad markaasi yaab u leh. maamadii waxaa isku duubtay wiilkii weynaa. kii yaraana waxa uu doonayaa xukunkii maxkamadda inuu fuliyo oo hooyadiisa uu ka haysto. laakiin markii uu arkay murugada walaalkiis iyo sida arrintu tahay ayuu go'aansaday. wuxuu ku yidhi walaalkayow adiga iyo hooyaba anaa idinka haynaya oo intaa idiin dhiman aniga ayaa idin haynaya. walaalkii weynaa oo la oran jiray Xizaan aad buu arrintaasi ugu farxay. wuxuuna sheegay Xizaan in arrintani ay faa'iido weyn u tahay isaga. inta uu hooyadii la joogo wixii uu u qaban karayo inuu halkaa ka qabto oo uu ka ducaysto. ducada waalidku waa muhiim. qof kastaahi waxaa laga doonayaa inuu waalidkiis haddii uu nool yahay uu ka ducaysto. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.